مسؤولين يحلبانا كترسن دولة الصومالية أي ديق دوا وحا أي قدونسيين اسبتال كويالا دقمدا عيل علي أو كترسن قبل كهيران واربحين تاسينا وحا إنو صوت ديري محمد خضر عبدالله سوشل intii ay degmada Al Cali ee gobolka Hiiraan ku sugnaayeen xildhibaano ka tirsan dawladda dhexe ee dalka iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxa ay kormeer ku tageen xarunta degmada ay ku shaqeyso iskuulka hoose dhexe sare ee degmada iyo sidoo kale isbitaalka guud ee degmada Al Cali ee gobolka Hiiraan halkaas oo ay guddoonsiiyeen daawo loogu talagalay in loo isticmaalo dadka bukaanka ah ee la keeno isbitaalka degmada Al Cali ee gobolka Hiiraan ugu horeyn ayaa mas'uuliyiinta waxa ay kormeer ku tageen xarunta degmada Al Cali iyagoona u mahad celiyay maamulka degmada ay sida ugu shaqeeyaan xarunta degmada Al Cali halkan waa xafiiskii degmada Al Cali waa arkaysaan waxa fadhiyo xildhibaanadii iyo maamulkii gobolka oo kormeer noogu yimi Al Cali waxa la qabtay koodii bishii 7 ilaa hadda wax badan ayaa iska bedelay Al Cali hadda waa meel nabad ah oo aad iyo aad dadkeeduna dawladda ugu heelan yahay ayna rajaynayaan wax badan oo horay ugu qaldamay ama ay laga xaqiray in ay ka helaan dawladda federaalka ah iyo maamulka gobolka Al Cali meeshan ku suganahay nabadda ka jirta cid idin weerdiismiyaad aragteen waa meel oo 8 sano ay shaqo soo yeeyeen meesha 8 sano ay soo hayeen in nabadda hadda ka jirta sidii loo korsayaa xildhibaano kale oo nuugaynaayo magaalooyinka caasimadaha isa soo kala sameeysan dhicin xaafila koodi bishii 8 2015 la qabtay maamaha waxa ay dareemi kartaan xaqiiqdii markii nala soo dhaweynaa sidii ugu soo dhaweey dad yoga sidii ugu heelayeen maamaha dhan waa taabooqashada inta ku jirteen xaqiiqdii indhihiina iyo adka sharaxaad ka bixin karo ما هو الذين شيء يعني واحد كم قنطانين والذين لا وحسب مش كجري وحسب كجري بعد ذلك جرتنا ودريم كرتي مال 6 سنة أو نحن أخذوا يكون هاي الوقت حنا هلكان كسلام يا تدوينها نجمة عيال علي وحن سلام ديرن أبونا مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية وحن سلام ديرن أبونا قدوميها برلمانك الصومالية وسيرك وزارة أرمها جدها أدواء لما أنتم أنت عندك ما يجونا وين السوا حريرين وسيرك ودبيو يسوى عاي وعوني إشي مدن قدومي إن دقمة عيال علي مشاريع بدن الله هايو لما دقموين كل حوري عدو قلب مشاريع بدن الله هاي أي حنان دونان أو أي سوق دونان أمانكو كجس أفرت بقول كيلومتر دركا إلى بقول 6 كيلومتر بلع عروق ديجانا داس أنا حل بعنا دونا يعني كسر جدي وكفر يورد وحكوا لنا هذا العلم دونا أنا علمنا أنا رو أدي إسكاشي أي سمية بلها sidoo kale waxa ay tageen iskuulka Hagoogane Primary and Secondary School iyagoona la kulmay maamulka iskuulka qaar ka mid ah ardayda dhigata iskuulka ayaa waxa ay jeediyeen khudbado ku baxay luqadaha Ingiriiska iyo Carabiga markii ay mas'uuliyiinta soo gaareen بعد الحمد لله إن الذين يشاهدونني أمام شاشة التلفاز ودميع الحاضرين ملأ الله قلبكم سرورا وفرحا كما ملأتم قلبي سرورا وفرحا وشكرا خاصا للأساتذة البررة. The students from Wayland Primary and Secondary School ready to deliver concerning the importance of the education. As we know, education is the key of the life, or I can say education is the root of the life. And our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, seek for education from cradle to grave. Or you can say education is the root of the life. ugu dambeyn ayuu xildhibaan Maxamed Maxamuud Goodir waxa uu ku wareejiyay maamulka degmada Al Cali iyo odayaasha dhaqanka gawaari loogu talagalay inay ku shaqeyso degmada Al Cali ee gobolka Hiiraan. Maxamed Khadar Cabdulle TV-ga caalamiga ee Somali Cable Al Cali.